Majalada The Forbes ee wax ka qorta arrimaha ganacsiga iyo maalqabeennada caalamka ayaa sanadan 2020 wax ka qortay jilayaasha caalamka ee ugu mushaharka badan. Majalada oo xog baaris ku samaysa maalqabeennada caalamka iyo hantidooda ayaa sanadkan soo bandhigtay aktarada sameeya aflaanta iyo mushaharkooda ay sanad walba qaataan. Daawade, haddii aad muuqaalada noocan oo kala ah ka hesho, fadlan like saar si aan u ogaano. Waxaan halkan idinkugu soo gudbin doonaa 5 ka mid ah 10ka atoore ee caalamka ugu mushaharka badan. Jilaaga kaalinta koowaad galay waa Rock Johnson oo u dhashay dalka Mareykanka. Waxa uu sidoo kaleete Rock haystaa dhalashada dalka Canada, sanadkanna waxa uu noqday jilaaga ugu mushaharka badan caalamka. Lacag gaaraysa 87.5 milyan oo dollarka Mareykanka ah ayaa la sheegay in sanadkii uu mushaar ahaan u qaato, waxaana ugu dambeeyay lacag dhan 23 milyan oo dollarka Mareykanka ah oo uu heshiis kula saxiixday shirkadda Netflix oo uu u sameynayo aflaan. Jilaagan ayaa aabihii Rock raacay isagoo noqday feeriyaan. Jilaaga aabihii waxa uu ahaa nin feeriyaan ah oo laga yaqaano dalka Mareykanka, taariikh wanaagsanna ka soo hooyay ciyaarahaasi. Rock ayaa markii uu ku biiray ciyaaraha feerka waxa uu ka soo hooyay guulo waaweyn ka hor inta uusan u weecan dhanka jilitaanka. Wuxuu wax ka jilay filimada kala ah The Scorpion King, Fast and Furious 6 iyo sidoo kaleete Jumanji Franchise. Kaalinta labaad waxaa galay jilaaga la yiraahdo Reynolds oo ah ganacsade sameeya aflaanta una dhashay dalka Mareykanka. Waxaa la sheegay sanad walba inuu qaato lacag mushaar ahaan gaaraysa 71.5 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Jilaagan ayaa waxaa la sheegay sidoo kaleete hanti fara badan inuu leeyahay, taasi oo ku kala jirta ganacsiyo kala duwan. Lacag ka badan 20 milyan oo dollarka Mareykanka ah ayuu ka sameeyaa hal filim kaliya markii uu damco inuu soo duubo. Aflaanta hadda uu soo wado ayaa waxaa ka mid ah The Free Guy, The Croods iyo sidoo kaleete A New Age, isagoo sidoo kaleetana kaalin mug leh ka qaadanaya filimka la yiraahdo Waardiyaha Xaaska ee The Hitmans. Jilaaga kaalinta saddexaad galaya ayaa waxa uu yahay Mark Wahlberg. Mark ayaa ah jilaa sidoo kaleetana ah majaajilista u dhashay dalka Mareykanka. Mark waxa uu sameeyaa aflaanta Hollywoodka. Hal filim kaliya oo uu u sameeyay Netflix ayaa waxa uu noqday filimka saddexaad ee loogu daawashada badan yahay filimaanta Netflix. Mark ayaa waxa uu leeyahay hanti fara badan oo weliba ku kala jirta ganacsiyo iyo sidoo kaleete dhul. Malaayiin dollar ayuu ka sameeyaa aflaanta musalsalka ah, sidoo kalena xayeysiimo uu sameeyo ayaa waxa uu ka qaataa lacaga fara badan oo foolul caqli ah. Sanad walba waxaa la sheegaa aktarkan inuu mushaar ahaan u qaato lacag dhan 58 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Kaalinta afaraad waxaa soo galay aktar Hindi ah, waana markii ugu horeysay ee aktar ka socda dalkaasi Hindiya uu gala kaalintani, isagoo weliba kaalimaha hore ee 10ka aktar ee caalamka ugu lacagta badan soo galay markiisii ugu horeysay. Aktarkan waa Akshay Kumar oo sidoo kale Soomaalidu ay u taqaano Master Bond. Jilaagan caanka ah ee reer Hindiya ee lagu magacaabo Akshay Kumar ama Master Bond waxa uu sanadkan ka mid noqday 10ka aktar ee ugu mushaharka badan caalamka oo idil. Akshay Kumar oo ka mid ah jilayaasha ugu caansan Bollywoodka dalkaasi Hindiya wuxuu jilay in ka badan 100 filim 30kii sano ee la soo dhaafay. Aktarka inta uu jilayay filimaanta ayaa waxa uu helay lacag fara badan oo aanan maskax gal ahayn, isagoo weliba jilay filimaan Hindi ah iyo sidoo kaleete kuwa Mareykan ah. Wuxuu sanadkiiba mushaar ahaan u qaataa sida lagu sheegay majaladaasi Forbes in ka badan 48.5 milyan oo dollarka Mareykanka ah, waana jilaaga ugu mushaarka badan marka loo eego aktarada kale ee ka tirsan Bollywoodka dalkaasi Hindiya. Wuxuu noqday aktarka kaliya ee ka soo jeeda dalkaasi Hindiya ee ka mid noqda 10ka jilaa ee ugu mushaarka badan dunida oo dhan. Inta badan hantidiisa ayaa la sheegaa in uu ka helo xayeysiimo uu u sameeyo shirkadaha waaweyn ee caalamka. Hadda waxa uu ku howlan yahay in uu sameeyo filimkiisa lagu magacaabo Bell Bottom. Akshay ayaa lacagta ka sameeya sidoo kaleete qandaraasyada jilista filimada iyo
ganacsiyo gaar ah oo uu isagoo leeyahay, kuwaasi oo uu ka mid yahay website-ka bandhigyada lagu shaaciyo ee lagu magacaabo The End. Atoorahan ayaa dhowr jeer oo hore safka hore ka soo galay isbarbardhigyada lagu sameeyay jilayaasha caalamka, dadka maalqabeennada ah iyo sidoo kaleete saameynta dadka ku leh bulshada dhexdeeda. Diiwaanka guud ee Forbes ee dadka caanka ka ah ayuu Akshay Kumar kaga jiraa lambarka da'diisa la midka ah ee 52. Filima soo saarayaasha dalkaasi Hindiya ee Bollywood-ka ayaa u kala tartamo in ay helaan Akshay Kumar si uu ugu jilo filimada iyaga ay doonayaan in loo sameeyo. Aktarka shanaad ee ugu dambeeya waa atooraha la yiraahdo Jackie Chan ee u dhashay dalka Shiinaha. Aktarkan ka soo jeeda gobolka Hong Kong ee dalkaasi Shiinaha ayaa ku caanbaxay aflaanta dagaalka iyo sidoo kaleete majaajilada isugu jira. Atooraha Jackie Chan ayaa waxa uu yahay mid markuu filimada jilaya dadka daawada ay aad uga helaan, iyadoo filmaantiisa inta badan ay isugu jiraan indhasarcaad, majaajilo, qosol iyo sidoo kaleete dagaal. Wuxuu sanadkii la soo dhaafay sameeyay in ka badan 5 filin, wuxuuna mushaar ahaan u qaataa sanad walba sida la sheegay $40 milyan oo dollarka Mareykanka ah. Jilaagan oo hadda la moodo in ay da'da ka daba timid ayaa mar walba oo uu filmaanta sameynaya waxa uu doortaa meelaha isaga uu isleeyahay markaasi waa aad ka sameyn kartaa filimada. Waxyaabaha uu sameeyo waxaa ka mid ah waxyaabo markaasi u eg indhasarcaad oo dabaqyada ama meelaha dhadheer laga soo boodo, ayadoo weliba dadka laadarinta ah marka ay filimka isaga la jilayaan uu ku ciyaaro isagoo u muujiyo weliba yasmo. Laakiin waxaa xusid mudan dhammaan waxyaabahaasi uu ku sameynaya dadkaas laadarinta ah in kaliya ay yihiin xilliga uu jilaya filimka, laakiin filimka kadib ayaa waxaa la sheegaa Jackie Chan inuu yahay nin miskiin ah oo aad u dabeecad wanaagsan, sidoo kaleetana farxaani ah. Inkastoo lacaga badan uu hadda ka helo xayeysiinta, haddana waxa uu noqday jilaaga kaliya ee ka soo jeeda dalweynaha Shiinaha ee ka mid noqday jilayaasha ugu mushaarka badan caalamka. Daawadayaal, intaa waxaynu ku soo koobaynaa barnaamijkeennii maanta. Tan iyo intaynu ku kulmayno barnaamijkan kiisa kale, waa anigoo inkaga tegaya. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.